الله وبركاته. meeshan waa goday meesha u dhaxayso cadaadle iyo goday u dhaxayso beeraha ah ilaa jeeray dhul u dhaxayso. meeshan waxaa lagu beeray aad aragtiin dhulkan u yaraan waxaan dhihi karaa waa 5 hektar oo ilaa halkaa 5 hektar ilaa halkaas tijaabo bariis tijaabo ah ayaa lagu beeray maasha Allah. waana aragtiin goday iyo kuleylkeeda iyo bariiskan sidoo u baxayo maasha Allah quruxda uu qabo. bariiskan waa bariiska lagu tijaabiyay oo hadda dawladda deegaanka ka shaqeynayso iyo federaalka Itoobiya. bariiskan waa qaybaha ka mid ah dhulka kulul ka baxa bariisyada dhulka kulul ka baxa cimilada kulul wala kaasa sida quruxda badan u baxayo maasha Allah. waa u joojin sida u joojin wakaasa maasha Allah. hadii dadku waa isku tashanaya dadku aad baan isku tashanay ciidana markaan eego xoogaa waxaad moodaa inay yara xoogaa cusba yar leedahay sidaad u aragtiin. dadkaas waxa waaye cusba yar bay leedahay dhulkan si qurux badan u baxaya ilaa inta ilaa halka waka hadda waa yar yahay kulli wuxuu jiraa saan filayo bil buu jiraa maasha Allah. waa arrin maartay bogaadin in la isku tashto oo wax walba la tijaabiyo arrin la bogaadinayo waa aan bogaadinayno. hadee halkaas iyo dawladda deegaanka Soomaalida aan ka soo salaamayaa xog badan waa in la soo wadaagi doonaa. meeshan dhul aad beera aad waaweyn oo dhul siman ah oo dhulka ugu qanisan dhulka Soomaalida is dhihi karaa laakiin waxa aad moodaysa in laga gaabiyay maartay dadka Soomaalida halkan Ilaahay baa dhul nimco badan siiyay laakiin way ka gaabiyeen maasha Allah.